السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أنتم بعض يلا وحسبتوا صحيح نقول صوتان لانتا أفك الصومالي جاي وربعينتا جيمين داود يلا مركب ورسي عن كوبلا ونورك ودور كورونا وحكم ذا مدحونها دولة الدجان كالصومالي ذا مدن مصطفى محمد عمر وكرمير الشقاء وتجي مقالة دكحبور يحرمتا قبل كشرر يا صوكر ميري مشاريعه مرند اللي جهير جليي مقالة السي دكحبور daawadayaal ku-xigeenka madaxa xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegtay inuu dalka ka curtay xanuunka loo garan og yahay furuqa danyeerka isla markaasina loo baahan yahay in laga taxadiro. waa hagaaga daawadayaal qodobadaasina waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu door karoon hadda se daawadayaal aan ku sii socday warkani waxa si toos ah idin kula socodsiinaya anigoo ah Cabdirasaaq Xuseen Fille. daawadayaal hadda se aan ku bilaabay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo la shaqo u tagay magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarar ayaa soo kormeeray mashaariicaha horumarineed ee laga hirgeliyay magaaladaasi Dhagaxbuur. waa hagaaga daawadayaal hadda se aan wada daawano muuqaalkaasi. وهاجك داوديال ku-xigeenka madaxa xafiiska caafimaadka ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegtay inuu dalka ka curtay cudurka loo garan og yahay furuqa danyeerka isla markaasina loo baahan yahay in si weyn looga taxadiro. waa hagaag daawadayaal hadda seen gudubno muuqaalkaasi. xanuunkan mpox la yiraahdo waa xanuunka furuqa danyeerka weey ka dalahan xanuunkan uu soo galay ama lagu arkay
Ethiopia may 26 ayaa lagu arkay waxaana ilaa hadda laga helay 6 kees 6 kees hal dhimasho weeye shantoodana dee dabiibkii bay ku jiraan ka deegaan ahaan may 28 ayaa mooyaale halkiisoo shaki awli la xaqiijinin baaritaan baa ku socda wali lama xaqiijinin laakiin calaamadihiisa markii la eegay waa laga shakiyay hadda marka meel baa lagu karantiilay dabiibkii iyo baaritaankii waa lagu wadaa marka halka kees mooyaale qabalaha saddexaad ayaa hay'adda laga helay wax hadda deegaankeena wali confirmed ama la xaqiijiyo oo dee uu ka jiraan oran kara ma jiro laakiin hubinkaas oo laga shakiyay ayaa dabiib lagu wadaa xanuunka kolley calaamadihiisa lagu garan karo qufac xumad aad u daran finan waaweyn oo afka biyaha ku wata weeyaan marka xanuunkaas calaamadihiisa bulshada waxaan leenahay haddii dadka calaamadaha lagu arko ha sameeyaan durbaha xarumaha caafimaadka u dhow ama health centerada u dhow haddii yahay hospital in durba la ogeysiyo lala wadaago la geeyo in finankaas la tataabanin maadaama si fudud lagu kala qaadayo finanka in la tataabanin qofka xanuunka lagu arko in gooni loo saaro meel gaar ah loo sameeyo haddii qof noocaas xanuunka ama calaamadaha haya haday arkaan in fara dhaqashada lagu dadaalo in afduubka la xidho face mask oo kale in la isticmaalo guddiga joogtada golaha xildhibaanada dowladda deegaanka Soomaalida kormeer shaqo u joogay gobolka Afdheer ayaa soo gabagabeeyay kormeerkooda shaqo ee ay u joogeen gobolkaasi Afdheer waa hagaaga daawadayaal hadda si aan ugu gudubno muuqaalka soo dhameystiran waa hagaaga daawadayaal guddiga joogtada golaha xildhibaanada dowladda deegaanka Soomaalida ee kormeerka iyo dabagalka u joogay degmooyinka gobolka Afdheer ayaa soo afmeeray kormeerkoodii guddigan joogtada oo kormeerkooda ahaa mid ay ugu kurgalayeen adeegyada bulshada iyo mashaariicaha heer deegaan iyo heer dalba isla markaasina kormeer isugu jiray dabagal iyo taakuleyn ayaa gabagabadii kulan la yeeshay maamulka gobolka Afdheer ugu dambeyntiina guddigan joogtada ayaa maamulka gobolka Afdheer u soo jeediyay talabixino ku aadan waxyaabihii ay soo arkeen iyo sidii loo sixi lahaa maanta waxaan kormeer ku ahayn degmada Hargeysa si guud goobaha aan booqanay ama waxyaalahan xooga saarayna kormeerkeen wuxuu ahaa mashaariicda kala duwan ee heer federaal heer deegaan iyo heer degma ee ka socda degmada sidoo kale waxyaalahan xooga saarayna ugu badan waxa weeye goobaha adeeg bixinta haday noqoto xafiisyada kala duwan ee degmada goobaha caafimaadka haday ku yaalaan meelaha miyiga iyo kuwa magaalada ku yaalo iyo sidoo kale waxaan booqanay goobaha adeeg bixinta iskuulada adeega ay bixiyeen wuxuu yahay iyo biyo-gelinta magaalada oo laga soo jiiday webiga Jarati god cusbi Hargeysa wakaalada biyaha ayaa sidoo kale booqanay oo caqabado fara badan ka jireen si guud goobahan isleenahay waxay u baahan yihiin in wax laga qabto oo heer degmo quseeyay waan la wadaagnay sidoo kale goobahan isleenahay in xoog la saaray u baahan yihiin waxa kamid ah mashaariicda si guud boarding schoolka Hargeysa laga dhisay oo taagan taana xukuumadda iyo cidda ay quseysay waxaan u soo jeedin lahayn in la dedejiyo mashruucaasi la dhameystiro adeegiisa sidoo adeeg u bixin lahaa loo sameeyo sidoo kale waxaa jira mashruuc heer federaal ah oo sogsog kanaal laga qodayay sogsog kanaalkaasna xafiiska beeraha xog fiican buu ka hayay muddo mashruucaasi uu taagan yahay asagana caqabadna wuxuu ku noqday beerihii ay dadka beeran lahaayeen marka mashruucaasna in dhaqso la dhameystiraan soo jeedin lahayn sidoo kale waxaa jira mashruuc gidibka Sarmaan laga qodayay mashruucaasi asagana muddo uu taagan yahay inkastoo ay noo sheegeen qandaraaslayaasha ama qoladii mashruuca gacanta ku haysay inuu lacag iyo waxyaalaha u taagan yahay mashruuca asagana caqabad buu ku noqday goobo biyo la'aan oo fara badan maadaama ay jiraan
in asagana degdeg loo hagaajiyaan soo jeedin lahayn. Si guud kormeerkani wuxuu xoogga saarayaa adeeg bulshada la siinay inuu si fiican bulshada loo gaarsiiyo. sidoo kale mashaariicihii heer deegaan socday waxyaalo badan oo ka qabsoomay baa jira in la sii xoojiyo la sii dardargeliyo xoogga saaraya. sidoo kale kormeerkani dhaliilihii lagu arkay wixii heer gobol quseeyay heer gobol baan la wadaagi doonaa, wixii degmada quseeyayna degmada waan siinay. waa hagaaga daawadayaal intaasi waxaynu ugu eeg waxaan idiin haynay warkan waxa si toos ah idin kula socodsiinaya anigoo ah Cabdirasaaq Xuseen Fiile. waxa si toos ah inagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee warbaahinta JMN. daawadayaal intaan ku kulmi doono kulanka xiga waxaan idinkaga tagay sida nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.